يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديت. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta halkan idinku soo gudbin doonaa faa'iidooyinka ay noo leeyihiin biyaha la cabo subaxa hore. Fadlan nala soco walaal daawade. Faa'iidooyinka ay leeyihiin biyaha la cabo subaxa hore. Cabidda biyaha waqtiga hore ee subaxii waxay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad. Dhammaan organism waxay u baahan yihiin si biyuhu ay u qabsadaan shaqooyinkooda saxda ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka laga helo cabidda biyaha waqtiga hore ee subaxii waxaa ka mid ah: 1. jirka ayay ka saaraan sunta. 2. waxay nadiifiyaan mindhicirada loo yaqaan intestine-ka. Kadib jirka wuxuu awood u yeelanayaa si fudud inuu iskaga saaro saxarada. 3. markaad cabtid biyaha subaxii hore waxaad waqti hore dareemaysaa gaajo waxaana awood u yeelanaysaa in aad qureecatid. 4. biyaha waxay kordhinayaan dhiigga. haddii aad dhiig yaraan ku hayso haddaba waxaan kula talinayaa inaad biyaha subaxa hore cabtid. 5. waxay ka hortagaan madax xanuunka badan. 6. waxay fududeeyaan biyaha in jirku si fudud u burburiyo cuntooyinka. 7. waxay yareeyaan culayska jirka. 8. waxay qurux iyo dhalaal ka dhigaan maqaarka. 9. waxay kordhiyaan tamarta. 10. cabidda biyaha waxay joogteeyaan difaaca jirka immune system-ka. biyaha aad ayay muhiim ugu yihiin jirka. waxay ka qayb qaadanayaan isku dheelitirnaanka fluidska jirka.